Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Weli ma maqashay ninkii la daldali kari waayey? Saddex mar ayaa la isku dayay in la daldalo, laakiin way u suurageli weyday. Haddaba maxay tahay sababtu? Inta aan mowduuceena bilaabin, fadlan muuqaalkan like saar si ay dhiirigelin noogu noqoto. Kuna soo biir kanaalkeena xog baahiye adigoo subscribe taabanaya. Ninkan magaciisa waxaa la yiraahdaa John. Waxa uu dhashay sanadii 1864, wuxuuna ku dhashay waddanka Ingiriiska. Wuxuu la soo koray walaashiisa dhanka hooyo ay walaalaha ka ahaayeen. Walaashiisna waxay ahayd qof aad iyo aad u hanti badan. In badan ayuu shaqo raadiyey, laakiin way u suurageli weyday. Ugu dambeyntii wuxuu shaqo ka helay beer ay lahayd haweeney aad u gacan adag, micnihii bakhaylad ahayd. Habartaasi mushaar aad u yar ayay siin jirtay John. Maalin ayay dhacday musiibadaasoo ah in la dilay habartii uu u shaqayn jiray. Habartaas magaceeda waxaa la oran jiray Emma Ankis. Waxaa lagu dilay mindi, gaar ahaan mindidii uu ku shaqayn jiray John. Isla markaa la dilayay habarta, John waxa uu hurday qolka ku xigay qolka habarta lagu dilay, taasoo askartu ay uga shakiyeen in uu John dilay habarta, maadaama lagu dilay mindidii uu ku shaqayn jiray qolka ku xigayna uu hurday. Waxaa kaloo shakiga sii dhaliyay habartan iyadoo shaqaalahoo dhan mushaar yar ay siin jirtay, si gaara waxay mushaarka uga jaran jirtay John, iyadoo sabab uga dhigaysa eedeymo aan macquul ahayn. Maxkamaddii ayaa la keenay John, dembigiina waa lagu caddeeyey, inkastoo caddeymo saxa aysan meesha oolayn. Laakiin waxaa la yaab noqotay in John lagu xukumay daldalaad. Taasi waxaa kasii la yaab badnayd markii daldalaadda lagu xukumay kadib, John ma baqin, ma naxin, ma cararin. Wuxuu ka mid ahaa ragga maxkamadda fadhiyey kan ugu degan, taasoo la yaab ku noqotay ninkii maxkamadda joogay iyo dadkii maxkamadda fadhiyey ee kasoo qayb galayba. John waxa uu yiri isaga oo la hadlaya ninkii maxkamadda fadhiyey, ma garanaysaa sirta ka dambaysa deganaanshahayga? Waa in aan lay daldali karin si kastood yeeshaan, sababtoo ah Ilaahay wuu ogyahay inaana dembigaa galin. John xabsiga ayaa la sii geliyey si loogu diyaar gareeyo daldalaadiisa. Goobta lagu daldalayo waxay ahayd laba alwaax oo aad moodid albaabo ayaa qofka lagu istaajinayaa, kadib madaxa maro lagu daboolayaa, xarig ayaa gacmaha iyo lugaha looga xirayaa. Intaa kadib xarig dheer ayaa madaxa loogu xirayaa, markaas ayaa birta la riixayaa si ay u furmato albaabada uu qofku ku istaagan yahay. Meesha qofka uu ku istaagaya albaabo dheh ama alwaax dheh ama fardado dheh, kolley waa meel furmaysa. Intaa kadibna qofka sidaas ayuu u farganayaa ilaa uu ka dhimanayo. Subaxdii John la daldali lahaa subaxdii ka horeysay ayaa la soo tijaabiyey birtii bal inay shaqaynayso. Weliba 5 joor ayaa la soo tijaabiyey, wayna shaqaynaysay. Subaxdii John la daldali lahaa habeenkii ka horeysay ayuu riyo ku riyooday. Riyadaasna waxa uu uga sheekeeyey ninkii ilaalinayay. Waxa uu uga sheekeeyey in uu xalay ku riyooday in ay ku guuldareysan doonaan inay daldalaan oo aysan marnaba u suurageli doonin. Balse saacadii bar kadib riyadaasi waxay isku bedeli doontaa mid dhab ah. 8 ama 2 saac oo subaxnimo ayaa John la soo kaxeeyey. Waxaa la keenay goobtii daldalaadda. Xarig ayaa lugaha iyo gacmaha looga xiray, maro ayaa madaxa loo geliyay ilaa garbaha gaaraysay. Intaa kadib alwaaxii isbalaqaaya ayaa lagu istaajiyey. Xarig aad u dheer ayaa madaxa looga xiray. Laakiin wuxuu xaalku isbedelay markii la riixay birtii furi lahayd meesha uu ku taagnaa John. Birtu way riixmaysaa, laakiin alwaaxyadii uu John ku taagnaa isma balaqayso. Waa lagu celceliyey, haddana way furmi weyday. Dadkii meesha joogay yaab ayay afka la qabsadeen. John ayaa laga soo dejiyey meeshii uu ku taagnaa, haddana markii birtii la riixay way furmaysaa. Markii John la kaxeeyo oo la saarana alwaaxa furmi mayso. Taasaa la yaab ku noqotay dadkii meesha joogay. Waxaa la isweydiiyey markii uu John ku taagan yahay maxay u furmi weyday, markii laga soo dejiyena u furmaysaa. Intaa kadib John waxaa lagu soo celiyey qolkii uu ku xirnaa. Waxay u maleeyeen in uu xumaaday alwaaxan uu ku taagan yahay. Maalintii dambe ayaa la keenay, isla sidii baa dhacday. Markuu ku taagan yahay furmi mayso, markii laga soo dejiyena way furmaysaa. Maalin saddexaad baa la keenay, isla sidii baa dhacday. Intii waxaas oo dhan ay dhacayeen, John wuxuu ahaa qof aad u degan
oo aan wax naxdin ah ay ka muuqan, kalsooni aad u weynna ay ku jirto. Intaa kadib, John waxa uu yidhi, awood uma lihidiin inaad i daldashaan, sababtoo ah Ilaahay wuu og yahay in aanan dembigan geysan. Baadarigii meesha joogay waxa uu yidhaahday, fadlan yaa la isku dayin in mar dambe wiilkan la dilo. Ninkii daldalaadiisa qaabilsanaa waraaqad ayuu u qoray maxkamaddii dilkiisa soo fartay, waxa uuna ugu qoray wixii mucjisada ahaa ee meesha ka dhacay. Maxkamaddiina xukunkii ayay ka khafiifisay oo waxay ku xukuntay xabsi daa'in. 20 sano markii uu xirnaa ayaa la soo fasaxay. 15 sano dambe ayuu sii noolaa. Waxa uu John dhintay sanadkii 1920. Si caadi ah ayuu u dhintay isagoon wax dhiba soo gaarin. Intaas ayuu mawduuceenu ku eg yahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.